arday Soomaaliyeed oo wax ku barata dalka Malaysia ayaa iyaguna lacaga ay iska aruuriyeen waxay ku soo bandhigeen Kuala Lumpur sida uu warkan ku soo waramayo Saciid Cumar oo halkaas nooga soo diray. kulna isugu yimaadeen qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata Malaysia ayay ku soo bandhigeen lacago ay ka soo ururiyeen bulshaweynta Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ee ku nool Malaysia. lacagahaasi ayaa loogu talagalay sidii loo gaarsiin lahaa walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo dhibaatooyin xooggan ka soo gaartay abaaraha ka jira Soomaaliya. ardayda tani ayaa waxa ay u xilsaareen guddi loogu magac daray guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliyeed ee Malaysia. ugu horeyntii waxaa sharaxaad ka bixinaya qaabka ay lacagahaasi u soo ururiyeen Fawzi Maxamed oo ka mid ahaa guddigii loo xilsaaray lacag ururinta. haddaan idinkaga sheekeeyay u soo aruurin lacagahan waxaa la sameeyay guddi Soomaali ah oo ka yimid shanta Soomaaliyeed oo ka soo aruuriyay sadaqadan iyo taakulentan loo diray walaalaheena ku dhibaataysan wadanka Soomaaliya dhammaan Soomaalida ku nool wadanka Malaysia dhammaan xaafadaha ay ku nool yihiin dhammaan ardayda jaamacadaha ay dhigtaan dhammaan meelaha ay ka shaqeeyaan dhammaan dadka ku nool Soomaalida ah oo ku nool Malaysia oo dhan ayaa laga soo qaaday. waxaynu sameynay guddiyo ka kooban gabdho walaalaha iyo wiil walaalaha howl weyn ayay qabteen guri kasta oo Soomaali ah jaamacad kasta oo wiil Soomaali ama arday Soomaali oo dhigto meel kasta ninkii ganacsi yar leh dhammaan waa loo tagay xataa waxa ku jiray wiil yar oo 3 sano jir ah taa lama dhaafin waa loo tagay sadaqada waa laga soo qaaday. dhanka kale gabdhaha Soomaaliyeed oo door weyn ka qaatay lacag ururinta ayaa Canab Nuur Hilowle waxa ay ka waramaysaa rajadooda intii ay la ekeyd markii ay bilaabayeen hawshani. runtii markii la bilaabayay barnaamijkan cabsi xoog la ayaa jirtay in dadku aysan mataqaanaa aysan laga heli doonin oo wax aysan bixin doonin laakiin xaqiiqdii waxaan ogaanay quluubta dadka Soomaaliyeed inay tahay quluub saafi ah oo aad u wanaagsan sidaa darteed qof kasta oo Soomaaliyeed oo loo sheega si dhab ah ayay uga damqatay dareen xoog la ayay ka muujisay iyadoo ay jirto in ardaydu ay yihiin dadka meeshan ku nool ama qoysas mataqaanaa aan wax sidaas yani u sii buuran aan haysanin haddana ayagoo sidaas aan wax u haysanin ayuu qof kasta wuxuu bixiyay wixii awood u lahaa wuxuu qaarkood ay bixiyeen wixii maalintaas ay cunayeen oo mataqaanaa ahayd cuntadoodii qadadoodii ama cashoodii ahayd ayay bixiyeen si ay ugu badbaadiyaan ummad walaalahood ah naf si ay ugu badbaadiyaan. ugu dambeyntii Daahir Xaaji Cusmaan oo gudoomiyaha gurmadka abaaraha Soomaaliya ee Malaysia ayaa sharaxaya tirada lacagta u soo ururtay iyo halka ay ku hagaajin doonaan. bismillaahir rahmaanir rahiim walaalayaal lacagtan waxa laga soo aruuriyay Soomaalida ku dhaqan Malaysia Soomaalidaas iskugu jira arday iyo familiyo alxamdulillah lacagta noo soo xarootay waa lacag dhan 30,000 ringgit oo lacagtan Malaysia ah oo u dhigma 10,000 oo dollar. lacagtan insha Allah waxa lagu hagaajin doonaa hay'adda la yiraahdo Somali Aid oo isla shaqeeyaan lajnada la yiraahdo lajnada muslimiin Afriqiya waxaan ku hagaajin doonaa insha Allah walaalkeen madax ka yahay Maxamed Ali Afrax insha Allah iyaga ayaan ku hagaajin doonaa jazakumullah khair. lacag ururinta tani ay ahayd wajiga koowaad iyagoo ay ku soo ururiyeen in ka yar muddo bila waxayna guddiga kana ballan qaadeen inay u gudbi doonaan wajiga labaad isla markaana ay ka balaaran doonto qaabka iminka loo ururiyay waxayna la kaashan doonaan qaar ka mid ah hay'adaha ka howlgala wadanka Malaysia. Saciid Cumar, Universal TV, Kuala Lumpur.